koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfi laag sidaanay ilmuhu uga qosliyaan aryaadhaha reer kalamaan xalay madaxdi kalamaanka ahayd dhegaysigeeri waa ku dhafarteene how inti baaliis yaa birsuunaal ha soo baxdee ma baarideen inti baaliis yaa birsuunaal ha soo baxdee ma baarideen haye baryaan kala maqnayno waahidii basaase bulshayahay ma nabadba bulshayahay ma nabadba wala ku tabti barinaye ma barideen barinaye ma barideen adiguna wax kalaad ka tag hergalnaye ma hergasheen hergalnaye ma hergasheen war heystan hal afaa lagu qaadi jiray afafkan badan inta ka dhaaftaan dhegaysta magaalada Garowe sidii lacagti tiiltiilay ama xalay dadkii ka hadlayo wada xishoonayay af wax cunay siduu yeeli jiray waa waramayeen miyaan gabaygu waa badan yahay idinku dheeray aryaxaad gabay nagu dheeraysa xabadba nooma sheegin warrinku waxa idin yiri miyay lacagtu waa badan tahay deyntu idin waashay lacagta imaaraadka bixiyay maya qadara dhiibti aryaadaha timirti horeba dab loo waay alla yiri kalamaan waxaan ku nacay shanqara kala idin baxa markaas aad ka hadashaa waxaan loo joogin dhagaysta sariigtiya sabool bay ka tahay saamaxaadaba siigada dhacaysiyo hir iyo mawjadaha sida saldhig male siyaasada jirtiya hawsha socota saaxiib siyaasadii muufa ma ahan lugama karaacina waryoyoonti kuwaa maxay miidaan iscafiyin waxaan idin idhi lillaahideen dhabeeshay runta aaminka weyday beenta aan oggolaannay danaysiga aad dimbaystay arxankaan ka fogaannay laba aabba walaagtiyo laba uur wada saxay eedda taalla dhexdooda dhaqan maahan islaama ilaahow na badbaadi warwarkaad sheegays markuu baarlamaanka furmorgey kor ha loola kacee kabiirkii kalamaan aan kobta aan ku arkaa war kabtaa hafaninta waa igu soo kadisee bal warkaan iga koobi war madaxdii xala Garowe ka hadashay waxaa ugu war fiicnaa oo la qaadan kara warkiisa islaan ciise islaan maxamed wuxuuna u sheegay Soomaali waxay dhibaato soo martay wuxuu kale u sheegay wixii hore in lagu waana qaato oo mar kale ay dib u soo laaban war madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamed wuxuu yiri Soomaaliya 30 sano dawlad bay ahayd 30 sanana waa burbursanayd 30 sano nagu soo socda maxaan filanaynaa soo ma haboona inaan ka sii tashanno hor u deeri ilaahayna siyoba ka darayhe aryaa anigu warkaaga ma aqaanay qabyada anaa dhammaystiraa ama uu yiri war mucaarad iyo muxaafid xalay dadkii Garowe ka hadlay waxaa ka muuqatay warkooda in la yiri meeshan hadal xanafle loogama baahna waa caleema saar cabdiraxmaan cabdishakuurna afkaaba sharooto laga saaray war muxuu Soomaaliland magangeliyo siyaasadda wadiisa waayay warka naga dhaxgalay dhageyso warka isaguna maruu saxaafadda la hadlay wuxuu sheegay in madaxweynaha la caleema saaraya ka codsaday inuusan goobta ka hadlin maadaama aan madaxweynaha Soomaaliya raalli ka ahayn war beentaan iska daa xala Garowe mucaarad ma joogin muxaafid baa laga wada dhigay dadkii meesha ka hadlana qof kasta hadalkiisa wuxuu ku bilaabayaa isagoo karila waxaan salaamayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Farmaajo yaa xal xafida madaxweyne xaafaaba ku bilaaba hal lees cafiyo leesuma uurfayaabe war xaa muxaafidaha maayadii odabiiqay iyo Arweelo Sheekh Shariifa muxaafidahay war madaxweynihii hore Puntland Senator Cabdiraxmaan Faroole wuxuu yiri madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxay ka soo jeedaan Galmudug khilaafka Galmudug أحمد مدوبنا doorashadiisi waa waliye isku dadagin buu dhahay walaadeeronimo ku hadhay hawlahaysaay maxamed axweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi loogu casuumi waayay Garowe war Muuse Biixi meesha kama maqnayna leeyfu u fiirsanaya caleema saarka warnamiyo ani warsiin haaya Soomaali mayka maahmaase hal haaran nilig halal madalaas madawiina lafta garan qudbadiisa ila dhageysadaas ka aali mayleeya dadka koonfur galbeed xuquuqdiyo oo sax ee Puntland ka helankii war isaag mad isaagan waa madagay meelaha kala mooy xuquuqdaysa rasmi aan hali maaha war hanasa qudbaaha
wareedhaha guddoomiyihii gobolka gaarisa ee soomaalida NFD caleemasaarkii waxaa la ka hadla wuxuu yidhi madaxda caleemasaarka caawa fadhisa waxaa ka maqan somalilan iyo soomaali galbeed soomaalina meel kasta waa ku dhibantaa oo faraqaa lagu dhegan yaha intiinaan koorarka waaweyn wata ayaa taladu inka goodaa ama soomaaliya badbaadiya ama qarrib u dhaha war faarax macalin wuxuu ku yidhi soomaalidii halalaayo si xal waara loo helo araada caleemasaarka xali anukuwa ma jooginee soomaalida waa wada joogtaa maxaa loo leeyahay yahu war adinka waaraa idin matalaye aroo wan a ku hertiyo war alisayid sheekh axmed madoobe wuxuu yidhi eegga waxaa la joogaa xilligii la isweydin lahay soomaaliya xaggay u socotaa laakiin kobtankada aan joogno wax la isuguma sheegi karo la iskumana calool fiyooba war guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi wuxuu yidhi dastuurka soomaaliya waa kan adduunka ugu muddada dheer uguna qarashka badan welina waa qabyo laba qofna ma kala saari karo war dhammaystirka dastuurka wasiir xoosh iyo xorriyadda falastiin yaa soo horreeya waa tii la yidhi maxaa soo kordhay war dastuurkiinnu nacasnimadaba cimri dherarku kaga dalan yayba war madaxweynaha la caleema saarayee deni wuxuu yidhi waxna waa la kala leeyahay waxna waa la wada leeyahay eeyaan laysku qaldin marka warkiisa waxaan ku soo xasuustay hadalkii cabdulqaadir oromo ee ahaa kaygana anaa iska leh kaagana kula lih war hawaalannina qof kastaa kartidiisu wax ku yeeshaa waxna ku waayaan war adeena somalilan cid nala yeelan kartaa ma jirto aryaadhaha wax kale ma ogediina madaxweyne farmaajo xalay wuxuu yidhi haddii lees cafiyey anigana ha lay cafiyo anigana cafisaad iga tihiin waana idinla shaqayhaa muggaan wixii ka dambeeya mucaaradna waa loo baahan yahow yidhi oo lagama maarmo minaysan inta shisheeye soo raacaan kursigayga hunguryay haynin warnimayahow waxay xalad shaqaynaysaane maantaa ka dambayso madaxdu wada qadeeyeen sidii sheekh shariif sheegayna iyagoo qosla ay ku kala tageen aryaadhaha aniga waxaa ii muuqata in lagu heshiiyey inaan la heshiin war wax wanaagsan saadaali waxa ha saadaalini wax walba waa ka hadasheene ugaartii dalka ka dareertay soo celinteeda ma laga wada hadlay war maraykanku wuxuu yidhi jid soomaaliya iyo jabuuti isku xidhan samaynayna war jidkaasi ma midkaan ku tahriibi lahayn baa mise waa midka ku soo guuri lahaa ani heer kalamaan waxaan dhihi lahay kulunkeenna waaye kawiirkaa ku jira waa la kasaa kulunkeenna waaye kawiirkaa ku jira waa la kasaa warnimadan soomaali state gobolka soomaalida etoobiya maamusho waxaan u maleeyey maamul goboleedyada soomaalidu ku dhaqan yahay madaxweyne mustafa cagjar iyo shidda ninka la yidhaahdo guddoomiyaha xisbiga ayaa iskhilaafay kadibna abiy axmeda u yeeray labadoodaba hadda asagoo labada dhinac ku sida labadoodii oo qoslayuu keenay yaa ceebkeed maahe soomaali waa caadadeed soomaaliya hadday iyadu heshiin weysay ciddii heshiisiisa khayr allaha siiyo war wiil soomaalida qaxootiga ee kenya ku nool ka mid ah waxuu ka qayb galay shirka dhaqaalaha adduunka waxaana uu yidhi waxaan u baahannahay in nala dareensiiyo inaan dunida qayb ka nahay waxaan u baahannahay inaan u noolaano sida bini aadamka uu nool yahay ma nihin xayawaan dad idinka idinla mid ah ayaan nahay warniyow sidii qayroob u hadlaya war xabsiga dhaxa ninkii lagu xidhoo ingiriiska ahay carreeda waraa laga soo sheegay ayaa war ka haayane war xabsigaa lagu weeraraa la yidhi ma waxbaa ka jira aryaadhaha kuwa u la xiraayaa xagxagtayaa la yidhi wax maa ka jira taas war shabaab iyo daacish baa lala xiraa la yidhiye ma waxbaa ka jira war jiraaba akaaruu iman war aan la yidhi waa dembiye ama waxaad ogtihiin sheega ama naga taga mana kaa tegayno mana kula joogayno waryaa wixii la xidhaa ha la xidhaa hanugu cabaadin war ilaahay ka cabsada waryaa rasuulkan gabiime waryaa الله يدين حريفته